mar labaad waxaan rabaa inaan yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullah. Salaan kadib waxaan rabaa inaan marka koowaad aan u hambaliyeeyo una mahadceliyo tiimkii isku soo aadiyay xafladan quruxda badan iyo shirkaani aan ugu wada tashanayno qaabkii u suurgelin karno ama loo brainstorm gareyn karo hab wanaagsan oo maxaa la yiraahdaa ka gudubsan ama ka balaaran weygii hore ee loo isticmaali jiray daryeelka caafimaadka gaar ahaan marka loo fiirsho dhanka taakulada ama insurance-ga. dabcan hadday markaan ka hadlayay isbarashadii waxyaabo yar oo waxaa jira oo aan isleeyahay muhiim ayay u tahay intaana loo gudagelin maxaa la yiraahdaa doodaha iyo raay isdhaafsiga inaan wax badan aan ka ogaano muhiimadda uu leeyahay insurance-ga marka laga hadlayo caafimaadka. dunida oo anaga qayb aan ka nahay waxaa jiro sistamyo kala gedisan ee dhanka caafimaadka ah marka laga hadlayo sida bulshada loo gaarsiin karo caafimaadka. qaabkaasi waxaa ka mid ah qaab hadda Soomaaliya ay qaadatay qaybna ka tahay wadamo badan oo dunida ka mid ay sameeyaan oo loo yaqaano universal health coverage. universal health coverage wuxuu qeexayaa oo ka hadlayaa inuu xaqiijiyo qof walba inuu helo adeeg caafimaad. adeegaas caafimaad uu yahay adeeg caafimaad quality leh ayuu ka fikirayaa ama uu design gareysan yahay. dunida wadamo badan ayaa isticmaala. Soomaaliya muddo gaaban ka hor ayuu ku biirtay. markaas waxaa xoog la saarayay service-ka ee adeega caafimaadka ee muhiimka ah ee primary health care-ka ayaa laga hadlayay. wuxuu leeyahay marka 3 tiir oo muhiim ah oo aan rabo inaan maxaa la yiraahdaa ku xiro mashruuca halkan aan u joogno. marka tiirarka waxaa ugu horeeya ugu weyn wax loo yaqaano equity oo laga hadlayo in dadka si siman ay wada helaan adeegaas caafimaadka. kooda wax haysta kan waxaysan kuwa maxaa la yiraahdaa barakacayaasha kuwa gobolada iyo meelaha fog ku nool kuwa magaalooyinka ku nool inay helaan adeeg caafimaad ee u siman yihiin adeegaasna uu leeyahay adeeg wanaagsan ah. sidoo kale qodobka labaad oo muhiimka ama tiirka labaadna waxaa la yiraahdaa quality-ga. dabcan haddii marka adeeg laga hadlayo waxaa muhiim in laga hadlayo laftigeeda adeegga la qaadanayo inuu yahay adeeg quality leh oo qofka uu aqbali karo service-kaasna ay tahay service ka turjumayo baahida caafimaadka. qodobka saddexaad ugu muhiimsan waxaa la yiraahdaa financial protection. dabcan qof walba anaga naga mid waa yaqaanaa maanta haddii xanuun yar uu la kulmo shaqadiisii ama maxaa la yiraahdaa nolol maalmeedkiisii fasax uu ka qaato ama maxaa la yiraahdaa si lama filaan xanuun degdeg ah oo ku soo boodo dhaqaalihiisa sidii maxaa la yiraahdaa qalqal u galaa dareemi karnaa. sidaad u tagaysa isbitaal baaritaan maxaa la yiraahdaa maybe qaliimo la geli karo qofka la seexin karo waxaa ku soo wajahmayo arrimo fara badan oo xagga dhaqaalaha ah. walaalkaasi waxaa mashruucan uu qeexayaa in la yareeyo financial protection oo ah in service-ka la bixinayo uu ahaada service aan qofka ku abuureynin qalqal dhaqaale. dabcan marka adeegaasi ka sheekeynayno in la wada gaaro waqti dhow suuragal maaha laakiin waqti u baahan tahay la kordhiyo la dadaalo access waxyaabo badan laga fikirayaa. balse waxaa muhiimka tahay waxay tahay number badan anaga naga mid ah waxaan ku xirannahay adeega caafimaadka oo private sector-ka ayaa ku xirannahay oo maanta qof anaga naga mid ah ama family-keenu hadduu xanuunsado wuxuu tagayaa goobaha caafimaadka private-ka ayuu tagayaa. maanta aad baxdo isbitaal aad tagto dabcan waad dareemi kartaa qarashka lagugu dalici karo dheeliga. sida adduunyada kale u horumarayso caafimaadkana horumar ayuu sameynaya. qalabka la isticmaalaya horumarayo daawooyinka ayaa la horumarinayaa adeega ayaa horumarayo dadka shaqada qabanaya quality-gooda ay kor u kacayo macnaheeda dhaqaalihiisa kor u kacaya waa isla socdaan. sidaa darteed qofka dhaqaalihiisa mushaarkiisa uu hooseeyo oo yaraa ama xanuunkiisa oo waqti ku qaadatay wuxuu dareemi karaa dhaqaale aad u daran ayuu dareemi karaa dhaqaale xumo aad u daran dareemi karaa. marka culture-keena Soomaaliyeed wuxuu qeexayaa marka qof anaga naga mid u xanuunsado in qaaraan loo aruuri la yiraahdo bal lacag aan u aruurino hebel xanuunsan isbitaal ku jira xaaska ka xanuunsan problemiin la sheego oo hadhowtii laga yaabo marka adeegaas ama support-kaas uu soo gaarayo ee tahay xil dambe ilaa aan gaarsiino Soomaalida ay tiraahdo
soomaalidu qofka way duugi taqaanaa mooye intuu nool yahay wax badan uma qabato sidaas darteed waxaa laga maarmaan marka anaga qof walba mas-uuliyad ka saaran tahay sidee ayaan ugu taxadari karnaa ama u diyaargaroobi karnaa inaan ka fogaano qalqal dhaqaale oo la xiriira marka ka hadlayna caafimaadkeena dabcan insurance marka laga hadlaayo in si bal marka loo fiirsho waa qaaraan aada hormarsatay oo meel aad dhigatay maalinkii aadan filayn xanuun degdeg kugu soo boodo aada u diyaargaroobaysa inaad maxaa la yidhaahdaa aada iska bixiso wuxuu noqon karaa mid bareefad qofku iska individual ah ama kambaniyada qofka shaqaalahooda inay ka bixiyaan ee ugu talagalaan standard ka dhigaan qof walba shaqaalaha ka mid ah inuu heli karo adeeg caafimaad meeluu ku tiirsan yahay inuu heli karo waa wax dunidooda idilka wada jira markaa fiiriso wadamada qaarkood markaa safar aadayso shuruudaha lagu weydiinayo documentiska travelkaaga waxaa ka mid ah insurance ma leedahay haddii haa tahay fiisina heshaa suuragal insurance malid waxaa kugu adkaanaya inaad fiisa ay hesho sababta loo yeela waa maxay adoo safar u baxay ganacsi ama dalxiis ama wax u baxay haddii dhibaato xagga kugu gaartay isbitaal lagu geeyo ee qaaraabo iyo ehel meeshiisa kuu joogin lacagtaas beris wax yaa lagu dalaacayaa waa inaan laga fikiraa dunidu waxay ka fikiraysaa marka qof ayaga u imaanayo dhibaatada uu keeni karaa ay ka fikirayaan marka anaga waxaa u baahana laftigeeda in la brainstorm gareeyo qaabka aan maxaa yidhahdaa looga fogaan lahaa financial constraints ku imaan kara adeega caafimaadka si gaara markaa usii fiirin soomaaliya markaan joogno xaaladeeda aad u adag tahay dhibaatooyinka waa iska badan yihiin caqabadaha waa iska badan yihiin qaraxyaa iska jira xanuunada waa iska badan yihiin duruufaha lagu noolyahay ama lagu shaqeeyo aad aad ayuu maxaa yidhahdaa u xun tahay marka waddan noocaas oo kale ah adi lafteeda waa laga maarmaan inuu leeyahay qofka qaabab kala gedisan oo ugu talageli karo inuu maxaa yidhaahdaa ku xakameeyo dhibaatooyinka ka imaan kara xagga caafimaadka waxyaabaha wasaaradda caafimaadka ka shaqeynaysa waxaa ka mid a marka in wax la sameyo wax loo yaqaano public private partnership in ay wada shaqeeyaan dadka adeeg bixiyaasha barefadka ah iyo dowladdii laga caawiyo maxaa yidhahdaa tababaradii qalabkii daawadii waxyaaba qaarkood laga caawiyo ayagana dadka u dhimiriyaan maxaa yidhahdaa ay bixiyaan qarash tiyo maxaa yidhahdaa tusaale ahaan waxaa ku filan isbitaalka la leeyahay digfir oo kale isbitaaladka magaalada la mid yahay laakiin markaa fiiriso ee adeegiisa aad isticmaasho waxaad dareemi kartaa kuwa kale barefadka wax yar inuu maxaa yidhahdaa ka jaban yahay sidaas oo kale marka qofka markuu meeshaas uu tago waxaa laga yaabaa saving inuu sameeyo markaad insurance company aad ku biirto aad tiraahdo aniga iyo qoyskayga waxaan ku biirnaa insurance company-gan waxaa laga yaabaa inaad dareento security ku saabsan inaad walwal badan aadan ka qabin haddii lacala xaalad degdeg aadan filaynin ama cunug guriga kuu jooga xaalad kusoo korto xageen sameeyaa yaa waca yaa raadiyaa t v maa fadhiistaa inaad ka fikirin ayaa suuragal ah markaana waxaa rabaa inaan ku dhiirigeliyo kambaniyada waaweyn ee dalka jooga in ay laftooda ka fikiraan qaabkay shaqaalahoodu maxaa la yidhaahdaa u damaanad qaali lahaayeen caafimaadkooda dunidu way horumareysaa waxaa xasuustaa anagoo ka shaqeeya hay-adaha ka mid ah ayaa contractigay waxaa ku jira haddii wax kusoo gaaraan intaad shaqeynayso anaga mas-uuliyad kuma lihin macnaha ayagaa u shaqeysa haddii wax kugu dhacaan ehelkaaga iyo qaraabadaada maxaa la yidhahdaa u doonanaysaa adeega caafimaad tii inay sii jirto xilligan labada kun labaatan labada anagoo joogno looma baahna in marka kambaniyada ka fikiraan shaqaalahaagii dhibaato kastaa ku dhici karta asoo koronto xilaaga koronto ku dhigi kartaa madaxaaga awgeed ayaa dhibaato loo gaarsiin karaa qalabka uu ku shaqeeyey waa maybe waxaa waaye electronic dhibaato ka imaan karta waxyaaba badan jiri kara meesha dhexdeeda ayaa dhaawac kusoo gaari karaa injiri ku imaan karaa waxaan u baahanaa marka laftigeeda inaan mas-uuliyad kale aan qaadano aan idhaahno waa shaqaalaha noo shaqeeya duruufaha waddanka ka jira anaga og sidee maxaa la yidhahdaa caafimaadkooda aan u hubin karnaa aan saboorta caawinada u samayn karnaa marka waa mas-uuliyad noo wada taalo haddaan ka hadlayno individual qof ahaan aan ugu hadlayno aan ka fikirin sideen caafimaadkeena ugu taxadiri karnaa iyo mas-uuliyad guud oo saabsan institutionska ama ganacsiga private ka ahaada ama kuwa public ay laftooda ha ahaadaan inay ka fikiraan dabcan kulley waxaa lasoo bandhigi doonaa qaabka warbixinada ku qoran ajandaha markaa fiiriso nidaamyo kala gedisan lagu caawin doona adeega caafimaadka waxaan ku darsan doonaa talooyinkeena iyo ra'yigeena siday nala tahay ku qurxoon tahay baahiyaha aan qabno soomaali ahaan iyo sidaan ugu waafajin karno standardka dunida ka jiro insha allah waxaan rajeyn doonaa mashruucan iyo mashaariicda kaleba inay noqoto kuwa hirgela inay noqotaan rajeyn doonaa hadduu ilaahay aad iyo aad mahadsantihiin aad u mahadsan yahay Dr. Cali Sow oo noo furaya barnaamijka